السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا سو دواada yaxaas dhagadubki baa idin kaga sheekeynayaa soo dhawaada. assalaamu calaykum waadi salaam soo dhawaada. yaxaas dhagadubki maanta i helay yaxaas dhagadubki i helay baa idin kaga sheekeynayaa soo dhawaada. wallaahi ninkii dhiman waayaaba indhihii dhiman waaya geel dharana waa la tusaa. waxaa la dhahay cagtii joogsan weyde marbaa soo joogsan laga helaa baa le cagtii joogsan weyde. war waxaa la igu heestaa waxa waa intii kaloo dhan hadlaayay, intii kaloo brograama samaynayay, intii kaloo dhan wax samaynayayba maaragta kuwa meelahaas iska caaycaayo ayaantii aan samaynayay maxaan ku dhahaa tii oo aan dhahayay caruurtu maaragta taas waa arka kuwa i caaycaayayo isqariyey. laakiin tii igu darnay waa markaaban child abuse-ka aan ka hadlay online-ka child abuse-ka. war yaabka la itusay waxa waaye aan idiin sheekeeye. maanta yaxaas dhagaduub bay tiri saa maanta u naxay haddaa idin sheego. wallaahi waa gariiraa idin nacallaa weji xum xaaraamiin baa i heshay maanta. xaaraamiin waana soomaali, cid kale ma aha, soomaali waay. maanta youtube-kaan aaday waxaan arkay comment. marka anigana qaladkaan lahay, qaladkaygan ana waa lahaa. commonkii marka waxaa la rabaa markii wax alla waxa oo bulshada horta marka hore tara idin kaga dhacaya intaana war kala gelinin. marka waxaa dhacday meeshii baan aaday commonkaan arkay. commonkii markaan arkeen commonkii waxaan ka siiyey commonka waa fiirinaysaa qof baa fartin ku dhaafaa isdhaysa. commonkii waa aniga keli gareeyey. markaan commonkii keli gareeyey inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. dee wixii oo sidiisiiyo action la sama actionkiiyo sidiisiiyo weliba naag balaayo cad. balaayada cadna waxa waa indhahaaga wejigaaga la soo saaray. balaayo cadoo wixiio dee anigii markaasaa waxaan ku iri baanig baa igu dhacay. acuudu bilaahi min ashaytaan rajim. yaa rabbi yaa allah yaa allah. aniga dhan argagax baa inta igu dhacay, argagaxay oo isku dhex daatay baan isku dhex daatay. wallaahi meel aan aada baan garan waayey. anigoo dhan shoog baan noqday meel u dhaqaaqo. markii dambe baan waxaan sameeyey markaan argagaxay horta waa iga tegi waaye. hore buu igaga tegi waaye xagga kubad. markii dambe telefoonka oo dhan baan damiyey. telefoonka dhan markaan damiyey, telefoonka mobilkaan kaga jirayna youtube-ka telefoonkii oo dhan baan damiyey. telefoonkii dhan baa markaan damiyey baan waxaan sameeyey, waxaan tegey markaasayto waxaan dhahay waxaan damcay ma aqoonin marka delete meesha waxaan laga remove garaynayo. marka ilaa weligeyba lamaba kulminbe waxa markaada la kulmi waaye aragama lahayn. cajiib waay. meeshaan ka remove garanay waa aniga google-ka tagay aan dhahay how to remove mataqaanaa this bad stuff. bas google-kiiba instruction baa la isiiyey. instructionkii baa raacay meeshaan ku noqday. markaa meeshii ku noqday waaba kaalaba delete waa igu soo taagay. markii dambe bay waxay dhaheen okay profile-ka tag qofka. horta profile-koodii baan fiiriyey. profile-ka waxay samaynayaan way bedbedelayaan profile-ka. magac shaydaan bay wataan oo alla qooro oo magac aan ahayn muslim iyo gaal magacba ma aha. ay tamis hadday rabaan magacood bay wataan. waxay kaloo assalaamu calaykum waxay kaloo wataan. markaan tegey waxaad arkaysaan inay dadkaanu yihiin dad accountka hadba bedelayo dee dad qajaan ay yihiin oo abuser oo dee wax kaleba maaragta aan ka shaqaysanba ka shaqeeyaba abuse-ka. waxay sameeyeen accountka la bedelay 6 qof kaliya follower ah, 7 qof baa follower ah. haddii aan firi waxa lagu yiri qofkan ma haysto page, there's no profile. way qariyeen wax kasta way qariyeen. markaan ka soo waayay markii dambeeto meesha report baan sameeyey. maxaan ku dhahaa remove-na waa sameeyey. marka ayagiiba youtube-kii baan report gareeyey. indiisan mataqaanaa waxa waaye images wiga remove gareey waa laga remove gareey. xalay markaan ka hadlaayay xalamiya mahameyn hore markaan ka hadlaayay child abuse-ka online-ka waxaan ka hadlaayay waa ku soo qaaday bay ahayd
inay ilmaha ay tusayaan images usoo dirayaan exactly waa kay maanta ii soo diray images bay soo dirayaan imageskaas marka ilmihii waxa waaye qaarna waxay sameynayaan imageski halka uga daarayaan wuu la fiirsadaan baa leeyahay ilmaha qaarkood qaarna directly waxa loo soo deynaya imagekii iyadoo actionkii ah ama iyagoo qaawan marka hadhow ilmihii markay brusweed gareeyaan bay waxaas dhahayaan wixii waxa samee ilmihiina markaas waxa sameynaya asagin uu ka daba sameynaya maaragtay ay sameynaya marka wixii aan ka hadlayaan dhahaya images bay soo anigii baaba la soo target gareysta marka naagtan waxa la yiri si loo aamusiyo aysan waxaan ay ka hadlaysa uga hadlay horta iyada u dhiib maaragtay kaarka u dhiib baa la yiri marka kaarkii waa taqaana imagekaaba dhac laygu soo siiyay meesha marka yacni waxa waaye wallahi shock aan qaaday I was so shocked marka lagu leeyahay qofka yacni waxa waaye qofka bini aadanka ah imagine ilmo yar oo saqiir ah anigii qof weyn ah waxa saa argagaxa igu riday ilmo yar oo saqiir ka waran markii loo soo daayo ilmahaas yarka daas weeyba ku leeyihiin maxaan ku dhahaa ilmuhu wuxuu noqonayaa mental illness baa ku dhacaya waxa ku dhacaya la yiri cudurro badan waxa soo cudurrada iyo mental illnesska ugu dhacaya ilmo waxa la hor keenay ka warraba maskaxdiisa iyo qalbigiisa ma aha wax waa ilmo yar waxaan ma uu handal garayn karaa iska ma celin karo anigii baa handal garayn waay I swear to Allah waa handal garayn waay baa hadda iga rumaysanaysaan wax waay shockii waxa igaga sii daray anigii oo dhabaanakin baa igu dhacay markaas waxaan dhahay xagga u booda xagga u indaa ka ilaali indhihi saasaan leeyahay aniga waxaan moodaa inaan hirka badweynta inta la igu turo aan la siiri dabaalo waliga aan marka oo aad dabaasha aqoonin waxa xasuusta jasiiro waagaan ku dabaalan jirnay iyo meelahaas ay taan yar yaray marka waa iska dhex tuuraysaa marka sidii oo kala noqdo waxaan noqdo qof oo badweynta ku dabaalanay marka xagga u dabaasha xagga u daba wajigi ka leexay subhanallah markaas xagga anoo dhan waxaan iri waa isdhex qaaday wallahi waa isdhex qaaday and I swear to Allah wallahi I feel the children waxa ilmaha yar yar ka ah oh my goodness ilmaha yar yar ka waxa lagu soo daayay oh my goodness ilmahaas waxa lagu soo daayo waan ka naxsanay waxa idin sheegaya waxa waaye oo idinku daray waxa waaye biliis waxa waaye biliis waxa aan maarta arkay iyo ka daran ilmaha la tusaaya waxa aniga maanta anoo weyn arkay iyo ka daran ilmihii la tusaa loo soo diraa ay fiirsanayaan live u fiirsanayaan ayagoo gurigii noo joogay gurigii iyagoo noo dhex fadhino oo joogaan baa waxaas live ay fiirsanayaan ay gamekii ka fiirsanayaan ay tabletkii ka fiirsanayaan ay mobilekii ka fiirsanayaan ay email loogu soo diraya maxaan ku dhahaa ay everywhere ay ka fiirsanayaan social media YouTube maxaan ku dhahaa social maxaan ku dhahaa WhatsApp maxaan ku dhahaa adiga you name it everywhere bay waxa ka fiirsanayaan marka waxaanayto waxa waaye hadda loo soo diray aniga la igu soo dirinahay in la igu aamusiyaa la rabay naagtan aamus gabadhan saaxiibna waxay ka shaqeysaa askarta waa way turjuntaa waxay la turjuntaa booliiska iyo maxay la turjuntaa maxaan ku dhahaa istaalada iyo maxkamadaha ka turjuntaa waxa waaye marka qaarkood waxay iga sheekeynaysaa abkay biirar faayisoo dhan halkan joogay markii halkan la daba galo way cararaan Soomaaliya tagaan marka yacni qaar waxay ii sheegtay inta xagga u tagay oo naagahoodii la diriray oo halkan ka tagay oo xagga tagay naagahoodii u soo diray images dhahayna waxaan maxaan kugu falayaanaya dadkan oo ka caruur yar yar oo la soo abuse gareynaya loo soo diraa naagii markay soo noqdeen isma oga ilaa waxa weeye dambiilu isma oga moogtaa markuu soo noqday halkan kama marmay isma oga ayadina way report garaysay markiiba markaas xabsiyada lagu guro qaar badan baa la xirxira laakiin waxaan ka wadaa wax way Soomaali balaaya ku dhex jirta balaayada wax waaye balaayo halkan 30 sano oo dagaalada ayna haysteen iyo habqanka iyo dhibaatada iyo dawlad la'aanka ilmihii 35 ama 30 iyo maxaan ku dhahaa 45 jira akhlaaq bii ka dhumay wuxuu ka dhimay mataqaanaa dhinac kasto ka baabay wuxuu ka baabay tarbiyadii wuxuu cid tarbiyaysa iyo cid akhlaaq gabaysa iyo respect iyo daas waa arkaysaa social media waligay intaan live-kayga la ekaa nin sheegaya naageedkeed ku caayaya social media ku arka how on earth baa yacni dad dhintay society-gaas dadka dhintay baa la rabaa inaan annaga aynu maskaxdooda
aan soo toosino soo dadka qabana isku dayaya inay annaga mas'uuliyadna saaran waay dadkan inaanu annagu ka dhaqno waxa ay ku jiraan dhibka ay ku jiraan waa dad aan weligood tarbiyad la siin waa dad aan weligood wacdi gelin la siin waa dad aan weligood loo sheegin waxa khaladka iyo waxa saxda waa dad aan loo sheegin hadalka la dhaho iyo hadalka la dhihin hadalkee ku munaasaba iyo keebaan ku munaasib ahayn haa aan artinin rag ah oo hooyo soo korsatay wiila uu u dhahayo qof dumara na geedkaas geedka weyn na kida weyn I never weligay maan arag weligay maskaxdayda weligay maan arag nin gabar caayaya oo u caayaya sidii gabdho wees caayaan yes gabdho wees caayaan waxbay isdhahaan waxay isku caayaan iyaga dumar ahaan bay isu caayaan yacni laakiin nin aba ku hadlay weligay maan arag nin saa u caytamay dhalinyaradana meel kasta media gashid qofkii damca inuu dadka bulshada waxa lagu caaya waxaas ku caayaya waxa waay dad aniga barnaamijyada sameeyay hadda waa barnaamijyo aan u arko wacdi gelin ah oo toosin bulsho ah oo dhibaatada jirta iyo waxa waaye waxa anaga dhibka nagu haay inaan ka hortagno u baahanahay in dadka iyagu ogaadaan haddana qaar baa ku caayaya waliba dumar baa xataa ku jira kuwa ku caayaya waxa ku caayaya dumar baa ku jira dumarkii raggu ha u bato wiilal baa u badan laakiin dumarna waa ku jira saas ay tahay dadkan waxa waaye dadka u baahan runtii dadka u baahan in wax laga qabto waana ku mahadsantihiin inaa maaragtay encouragement ilaa iyo hadda intaan meesha soo dhigay dad badan baa runtii isoo qoray taxi badan oo isoo encourage gareeyay oo dhaha arrintan waa arrin inoo wada taala abayuuska carruurta waa socdaa groomingka waa socdaa waad ogeedeen ilaa America nimanka groom garaynayo gabdhaha iyo wax kasta inay Soomaali ahaayeen London nimanka groom garaynayo daraaga gabdhihii hadda ku gadaayo waa Soomaali waxa ay isoo dhigayaan waxaana isku dayayaan inay naga cayriyaan meesha aan ka cararno boqolaal ha soo dhigan who cares waa delete garaynayna waana report garaynayna laakiin waxa waaye wax u baahanahay bulshadeenu inaan u soo jeesano wallahi bulshadeenu waxa la rabo in u soo jeesato oo la iska celiyo waxaan waa in la iska celiya waa in awareness badan la bixiyo waa in wacdigelin badan la bixiyo waa in lala dagaalamaa waa in mataqaanaa aan hoosta lagu haysan hooyooyinka xataa hoosta ku haysta waxaan oo dhalay guryaha u joogaan oo aan ogeyn oo social media ay ugu jiraan waliba uma malaynayo carruurta qurbaha ku dhalay in lagu ku dhashay inay saas yihiin intooda badan qof dhifo ma ogide laakiin aniga I don't think carruurta qurbaha ku dhalatay waxa la baraa ethics baa la baraa akhlaaq baa la baraa ethics baa la baraa waxyaalaha waxa la baraa human right ka la baraa waxa la baraa qofka ina cirdigiisa wax loo dhibin baa la baraa hadaa iyagu wax sameynaa waa sameeyay iban xataa waxay ku dadaalaan carruurta qurbaha ku dhalatay qofka ka weyn inaysan afka ku celin sidii anaga naloo soo korin jiray Soomaaliya markaan joognaa qofka ka weyn aan afka ku celin jiray iban walaalkaaga ka weyn walaashaada ka weyn baad afka ku celin jiray waaga Soomaali joogtay hadda sidaas oo kale ilmaha ba'ay oo edab darrada wada oo meel kasta soo gala waa kuwa iyaga oo maxaan ku dhahaa la keenay halkan teenager ama iyagoo la keenay maxaan ku dhahaa waaweyn ama kuwii soo tahriibay waxa waaye waxa edab darrada wada oo meel kasta wax qasay ilma halkan ku dhashay ma ilma qurba ku dhashay ma ilmaha akhlaaqda xun waa ilmaha dawlad la'aanta ku dhacday tarbiyad la'aanta ku dhacday cid akhlaaq garaysa aysan jirin dibad ku korka maalintii oo dhan guryaha gabar baa waxay ii sheegaysay magaalada ma sheegaayo gabar magaalada aniga aan deganahay ila degantay wax magaalay tagtay Soomaaliya kamid markay tagtay waxay tiri waxaan arkay wiilal waxaan arkay tiri reer hooyada salaadii bay kala haysaa suuqay fariisanaysaa iskuul bay ku soo qortay waxay tiri waa iskuulka tag ilaa waligiisba iskuul ma tagaba waxa way suuqaas wareegaya subaxii markay meelaha wareegaya ilaa heerka jaamacadeed markuu gaaray oo tir jaamacadan ka bixinaya I don't know say sheekadaas anigu ku dhacday bay waxay ku leedahay waxay ogaatay in maxaan ku dhahaa uusan jaamacad ba uusan aadin marka yacnihi waxa waaye waxaan anaga aanu ku talagalno community ahaan aan ku talagalno
dadkan sidii loo wacdi gelin lahaa meel kastay tagaan wadan kastay tagaan oo meel kastay tagaan dad badan oo dadkan wax geliya waanu aragnaa dad qaylinayo Soomaaliya waanu aragnaa dad qabiil u soo haysta waanu aragnaa dad qabiil barwood garaynaya waanu aragnaa dad xiiqdi iyo curihi iyo meel kasta inta laga ekaaday soo qabiil baqbaq inta hameenka yoobal qiyaamahana waxaas ula baqbaqleeyo isku dirka bulshada bay qiyaamaha wallahi naarta ku tagayaan ma aanu aragno way yaryihiin iban aqoonyahanka dadka sheeganayo Soomaalida ma arko dad adrees gareeyo oo badan haday jiraan way yar yihiin oo wada tirsan waxa waaye aqoonyahanka la sheegay muxuu yahay aqoonyahan muxuu ku yaqaana aqoonyahanka marna baan ka hadlayaa that's another subject I don't want ina aqoonyahanka horta dhinaciisa galo lama arag qof everything knowledgeable ka adduunka meel ay ka jirtana ma jirto Soomaalida aan ahayn marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye dadkan waxa waaye waa in la helaa dad wacdi gelin wax bartay oo ummadan wax ka bedeshay oo waxa mataqaana kaga bedeshay oo ma aha only kaliya maadigii iyo diintiiba isugu darta dadkan waa in la helaa dad maadigii iyo diinta isugu daro waxa behavior ka bedel qof kasto Soomaaliya ku jira social media waa inuu isku dayaa inuu positive thing ku hadlo oo mataqaana aan lagu mashquulin kaliya كل متقنا Soomaaliya siyaasadda ka jirto oo xaggaas lagu wada mashquulin dadku ay ku mashquulaan midda kale naxdinta kale oo jirta waxa waa dadkii ku jiray social media ayaaba laftirkoodii social media isku haysta markay arkaan waxaas macyadana ma u noqonayso good role model ma u noqonayso waxayba u malaynayaan meesha haday arkaan dadkii waa weynaayo social media soo galay oo is cayrsanay iyaguna halkii bay cayradii intaas waa aragteen caybay daldalaya balaayay daldalaya waxba la isku shubaya magaciisa qabiil baa la isku cayrsanaya kana la isku cayrsanaya iyagana dhinaca qabiilkooda ka galaya ilmaha waxa la rabay in looga sheekeeyo taariikhdoodii in looga sheekeeyo wadankoodii in looga sheekeeyo wax fiican in looga sheekeeyo jeclaansho in looga sheekeeyo wax ay ku hirtaan waxay higsadaan gool inay setting looga sheekeeyo oo qofkii wax yaqaanba uu dhaho okay maxaan u sameyn karaa dadka wax yaqaana halkaas inta soo galaan waa inay sameeyaan mataqaana maxaan ku dhahaa YouTube-ka iyo social media ilmaha Soomaalida ku jiraan ilmaha Soomaalida haday halkaas ay ku sameeyaan program waa in looga sameeyaa waa in maxaan ku dhahaa casharo looga sameeyaa program oo wacdi gelina oo ay ka qayb qaataan oo man la dhaho groupkaas soo gal hadda mid baa maalin dhaweyd beerta orday aan socday beerta baan waxaan ku soo qoray meesha waa ana iri marna waa orday marna xoog baa u socday waa fiiriye kaas Sweden buu joogaa waana qoladii soo gashay cid kale ma waa qoladii soo gashay wixii ugu soo qoray halka hoos wuxuu ku soo qoray bal waryaa waalay buu yiri qoftan way islaantan buu yiri weynaatay oo inta weynaatay yaa waalay oo yiri orod naaha nugu jabine buu yiri orodo naga fariiso buu yiri ma asaga kor saarna maxaa jabidayda ka galay meesha baa wax ku qoray maandhow da'du maceeba goormay da'dii ceeb noqotay maandhow gacali waxaa iri respect iyo ixtiraam wa akhlaaq fiican yani marka wax waaye hatta markaas oo kale aniga waxaan dhahaa marka arko kuwa qaldan wax fiican baan ugu qoraa meesha yani ma ignoro qoraalkooda wax fiican baan u geliyaa oo ugu qora sidee buu qofkan hadana aniga ana corrected garaynin oo correct ku noqonay I have to correct them markay wax ii soo qoraan I have to correct ay markay ii soo qoraan gabar baa waxay soo qortay good response wallahi si fiican baa ugu jawaabtay tiri ma aragtay marka waxa waaye aniga waxa waaye ujeedadaydu waxa waaye inaan wax meel wax ka tusiyo hoga tusaaleeyo inuu balmaankiisa qaldan uu wax ka bedelo laakiin hadda aniga mataqaana ama ignoro ama hadal qalafsan oo ugu jawaabo ilmahaanayto aan weligiis ma maartay wax xataa u naxariistaba arag ama wax akhlaaq uga sheekeeyo aan wax tarbiya baran aan arag oo dibad ka korka la dibaday wareegaan wada maxaan ku dhahay ya kala wuxuu sheegay waa inaan si positive even haday nacaayaan positive aan ugu sheegnaa haday nacaayaan waa inaan anaga ay ku jawaabin ama aanan mataqaana aan dhig sida iyo sidaas aata so waxa weeyaan mas'uuliyadu qof kasta ka saaran tahay mid baa wuxuu soo qoray baaldaway adigu habar inta la eg baatay buu yiri laakiin buu yiri saacaddan inaad meesha fadhida ma ahayna inaad mar hore dhimato bayayd waxaan aqli xumadiisa balgeerida ma asaga ay haye bal marka say u fakarayaan waxaad arkaysaa maskaxdoodu iman si fiican uma fakarayso
maskax fiican oo fakerayso oo xataa rational ah oo si fiican u soo fakerayso oo la soo qiimeeyay ma laha maskaxdoodu waaba qaldan tahay iyadoo dhan marka dadkaas waa inaan lagu sii daynin dadka waa in dadkaa la tarabiyeeya waa in dadkaa wax loo sheegaa dadkaas waa inaan la ignorin dadkaas waa inaan la iska dhegaysan dadkaas waa inaan la caayinin dadkaas waa in mataqaanaa markay wax soo qoraan qofkay meel kastoo ku aragtaanba si fiican wax ugu qora waxa waaye waana ah mataqaanaa haye maaragtay wax kaleeto ha loogu bedelo maaragtay inay maaragtay waxa ay sheegayaan iyo cayda wax ka fiican waxaas waa inaan ugu bedelaa oo aan u sheegnaa waxay tahay mideeda kale waxa waa abuse-kan wax jiro oo caadi ah waaye laguna haayo bulshadeenuna waxa waaye iska indharitirtita hadday soo kackacayaan dad yar baa hadda soo kacay abuse-ka markii hore waxa waaye Soomaalida lama taabtaan say ku dhici karta inaa Soomaalida maartay waaba laba taabtaan Soomaalida hello Soomaalidii hore maaha Soomaalidan waa Soomaali ka bedel Soomaalidii hore adduunkay soo gashay filmadii oo pornography baa waxa lagu haystaa maxaan ku dhahaa wadankii meel kasta lagu leeyahay xabiibtay Aamina waxaan raayay meeshii baa lagu haystaa waxa weeye marka wixii ay ayagu xagga ku arkaan filmada ku arkaan bay waxay rabaan experiment in anaka dala ku tijaabiyaan al rabaa udir waxa waaye tan ku aamis xagga ku aamis qaar baa xataa waxa waaye waxay sameynayaan islaamahan ay sheegayaan oo duqooyinka ay leeyihiin inay mar hore dhintay ahaayeen baqaar waxa waaye intay duluqa soo galaan iyo messengerka yaa u dirsaday anigu halkaasaan waxaan rabaa dadkayga inaan wax u sheego maanaha iri soo gal muuqdo wuxuu soo dhigaya asagiyo balaayo qaawan iyo balaayo magaciisa ku soo dhigay akhlaaq male haddana fiirsid profile-kooda fiir waa wiilal yar waa waxa qashinkaas wadankii soo galay oo meel kasta soo galay oo qurbo soo galay oo everywhere jooga oo la rabaa in wax la baro in wax loo sheego in la iska dhiciyo inaan laga cararin qof kastoo dabca bulshada nolosheeda in wax ka bedelo waxa la rabaa lugaha in lagu dhigo la iska laalaadiyo waxa waaye xishood baa jira xataa waagaan anaga yar waxa la dhihi jiray kudan xataa kuma aanan dhicinin inaan qof weyn saa u fiirino darbiyada marka xamar joogno yarayn dariiqa gabadhii la arkay iyada saa u taagan wallaahi hooyadeed loo sheegi jiray aabaheed loo sheegi jiray dariska dhan ku ceyrsan jiray ala dhihi jiray naya guf laba dhagax baa kugu soo dhici jiray iyo laba qoraal la dhihi jiray go ku yarham wasaqad yahay yaa ku yiri meesha istaag baa lagu dhihi jiray gabdha iyo wiilashaba awood ma lahayn ciyaalka inay dariiqyada saa u taagnaadaan oo iska magaciisiyaan inaan dad cayno bal iskaba dhaafe iyo wax kaleete so waxa waaye waa la dhintay waana la baaba'ay waana la ceeboobay waana sharaf dhacnaa socota meel kastana waa ka burburnay dhinaca maskaxeed baan ka burburnay dhinaca akhlaaq baan ka burburnay dhinaca diineed baan ka burburnay dhinaca waxaan ka burburnay fakir ibaan wax soo saar ma jiro ibaan xaggii wax soo saarka iyo tinkinkii baan ka dhurnay ibaan oo aan ka burburnay oo ka baaba'nay dadka Soomaaliga kuma fakeraan inta hadda joogta creative inay noqdaan wax soo saarta way yar inta ku fakerta ameel ba iska farfadhiyaan oo bil barnaanka looga soo diray buu maxaan ku dhahaa u fadhiya kuwii kale xataa kuwii halkan wad qurbaha markay soo galeen carruurta la soo galeen ku soo dhaldhaleen inay wax bartaan kuma ay fakerinin aday kula yaami jireen oo ku dhihi jireen maxaan ku dhahaa maxaa ku wada madacayta qaadad oo fariisat gacan hoorsi ma u fadhiyi kara ilaah baa ilaa inaan gacan hoorsado dadkan waxa waaye waxa laga qabto aniga kaliya iyo dhowr qofna kama qaban karto idinkoo dhan hawl idinta la waa inaa ka qabataan dariskaaga ka bilow kan ku dhow ka bilow hadalka xun marka aragtaan iyagoo sheegay positive ugu bedel hadii lagu caade boys positive ugu bedel taraay in waxa la dhahay reframe baa la dhahay reframe waa maxay reframe waxa waaye qof baaba mactalan wuxuu ku leeyahay Marcus indhahay ma taqaana ay kala wareejisay oo ma aragtay arwaskii baan isku aragnay heblo gafurkii indhahay ay kala wareejisay marka qofku saas oo kula dhaw gafurkii indhahay ay kala wareejiyay la dhaw waxa laga dhahaa ama laga yaabaa inaysan ma taqaana ay meel kale ay ka fakaraysay ama uu jiro ma taqaana issue oo family ama uu jiro ma taqaana de qofka wax kasta la xiriiray wax kale ka fakaraysay baa dhici karta marka araygii baad u bedelaysaa you have to be different muxuu ahaa war eraygi waa igooye
reframekii baa lagu sameynaya waa la bedelay ereygii baa meel kasta qofkii baa meel kale wax ku tusayto intuu xumaan ku focus uu saari lahaa oo qof islaama uu xumaantiisa focuskiisa saari lahaa ama uu assume garayn lahaa qofka waxaan jirinin inuu kasoo dhex saaro marka waxa waaye dadkan wallaahi dadkaanayto horta ugama baxayno annaka arrimaha hayno waa hameenkii xaalad tegey inaan ugaga baxno marka amran soo dhawow xabiibti waa shaydaanaha ugama baxaynaba arrimaha aan hayno marka waxa waaye maadaama aanaan arrimahan hayna uga baxaynin iyaga un baadaalini laakiin waa iska celinaynaa waxa waaye laakiin waxaan isaga celinayno waxa waaye inaan u nasteexayno waa inaan u nasteexayno meel kale wax ka tusnaa hoga tusaalaynaa behaviorkooda aan bedel isku daynaa inay wax ka bedelo maaragtay inay mataqaanaa ay ayagu isgartaan because qofka markuu qaldan yahay haddii aad positive inta wax ugu sheegtid meel kale wax ka tustid waxaa laga yaabaa inuu isqabto oo dhaho waxaan samaynayay mataqaanaa ma fiicna oo asagii isgarto laakiin haddaan la wadwadno ama mataqaanaa aan maxaan ku dhahaa isku dayno inaan ignoorno ama mataqaanaa maalin kasta intay waxna dhahaan aan okay maalin kasta kuusoo qora waad ignooraysaa maalin kasta kuusoo qora maad doonaysaa hadda waxaan arkay ninka la dhaho Abuukar Cawaale arkay Abuukar Cawaale markuu tagay Laascaanood oo wixii ka raacay hameenkii meel kasta oo waan falow gareeyaa Abuukar Cawaale because chatkan ka soo horjeeda hameenkii intii yarado meesha ku yiri up to now they abusing him linta in lagu cabsiyada ahayd linta macatayta linka cararo magaca leveling bay hadda ku dhajiyeen stereotyping baa la dhahaa leveling qofka waxa waaye markii wax lagu level gareeyo islaamku ma ogola in qofka bini aadanka level lagu sameeyo stereotyping lagu sameeyo waa part of the discrimination lama ogola this country waana bullying ana bullshit moogta lama ogola marka waxa waaye qofkiiba waxa waaye stereotyping lagu sameeynaya because wax mar dhacay wixii baa lala daba jooga soo dadka saasaha nahay say u caayayaan ninka weyn oo uu dhali kara qaarkood say u caayayaan ba halkaasaad ka arkaysaa yacni akhlaaqdii inay ka dhimatayba dhalinyarada iyo Soomaalidu completely waa ka dhimatay saacadii soo dhawaa xabiibti assalaamu calaykum waa ka dhimatay marka yacni waxa waaye waxan haddaynan ka hortaginin wallaahi waxa waaye meel xun bay nala gaaraysaa waxa waaye deed waxa dhalinyarada iyo wax kasta effective ku sameeynayo tusay Sweden baa hadda laga sheekeynay Sweden waa meesha Soomaalidu akhlaaqda ugu fiican lahayd waa meesha Soomaalidu ay maxaan ku dhahaa laga ixtiraami jiray waa meesha Soomaalidii markii hore dhigtay sida behaviorkooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda markii iga sheekeeyaan gabdhaha saaxiibo lana adiyaabaysi haddana Soomaalidii qadiyaan baa laga taagay yaa waay Soomaalida markii qadiyaanka laga taagay not Soomaalidii hore waa tan soo gashay meel kasta waxa urinaya oo baabi'inaya oo qashinka keenaya oo maxaan ku dhahaa pornographiga keenaya oo maxaan ku dhahaa jala abuse ka wada oo onlayada jirka u soo garaya waxaas waay waxa kale oo child abuse ka ayaguna sameeya ilmaha gabdhaha soo casumi doonaa maxaan ku dhahaa social worker ka gabdhaha ka shaqeeya la shaqeeya social worker iyo gabdha kale soo casumi kara doonaa oo professional gabdhahaas si fiican aan rabaa inay u faahfaahiyaan arrimahan runtii aad ugu dhex jira hadda marka waxa waaye dadkan abuse garaynaya hadda caruurta xalay waa aniga sheegay online-ka dadka ku abuse garaynaya waa dadka professionalka waa dadka ay yaqaanaan dadka xayndaabka kula jira waa family-ga asxaabta ay yaqaanaan coach-ka loo geeyo ninka football-ka ka ciyaarsiiya macallinkii dugsiga maxaan ku dhahaa dadkaas kan loogu geliya tuushinka iyo u dhigaya kuwa oo dhanba ciyaalka abuse garaynaya kuwa dariska kuwa yaqaanaan oo qaraabo ah kuwa online-kaasi ku jira halkaas laga abuse dadka yaqaanaan ilmuhu xataa marka la abuse garaynaya abuserka qofka ah maadaama uu brain wash ku sameeynaya ilmaha yarka oo saqiirka wuxuu sameeynayaa qofka abuserka inuu ilmihii uu inta empathy ka diyaarsado ilmihiiba uu mataqaana uu saaxiib iskala dhigo ilmihiiba uu san xataa garan in qofkan abuse ku hayo normal buu kaga dhigaya sax arinta dhanba wuxuu kaga dhigayaa caadi buu kaga dhigayaa ilmihii marka ilmuhu waxa weeye ilmaha qaarkood maba garanayaan baa lagu leeyahay in la abuse mid kale ilmuhu marka astaamaha lagu garto xalay waa sheegay astaamaha lagu garto waxa waaye ilmaha markii la abuse astaamaha lagu garto
ilmuhu waxa way wuu cararaa guryahay ka cararaan ilmuhu waxa waaye aggressive buu noqdaa ilmuhu waxa waaye